halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Claire, ilmaheedii yar ayay wadaa. Magaaladeedii oo dhan waxaa qabsaday ciidamadii Ingiriiska, waana gabar Irish ah. dhammaan dadkii oo dhan waxay ku khasban yihiin inay addoomo u noqdaan. gabadhanna waxay u tahay addoon. mid ka mid ah saraakiishii waddankeeda qabsaday cuntada ayay u karisaa, waxayna ku jirtaa jikadan. addoonsi aad u xun ayaa halkan ka socda. ciidamadii Ingiriiskana waxay qabsadeen waddankii oo dhan. dadkii oo dhanna waa ay laayeen, waana ciidamo aad u naxariis daran. baarkan ayaa la isugu yimi habeenada kamid ah. kadibna gabadhan oo lagu magacaabo Carol waxaa loo keenay baarkan inay ka jaasto. markiiba baarka dhexdiisa ayay ka qaadaysaa hees aad u macaan, dhammaantoodna way la cajabayaan gabadhan codkeeda. ninkan waxaa lagu magacaabaa Hawkan, waxa uu aad uga helayaa gabadhan codkeeda. si ka duwan dadka kale ayuu u fiirinayaa, waxayna ka tustay gabadhan. Carol waa ay dhamaysay heestii, kadibna waxay kasoo degaysaa masraxa. qaar ka mid a ciidamadii Ingiriiska oo halkan jooga ayaa aad ugu qoslaya. Hawkan isla markiiba waa uu soo kacaya, kadibna waxa uu imaanaya gabadhiisa oo ku yidhi xafiiska igu imow. isla markiiba qolkiisa ayuu galay xafiiska, kadibna waa u timaaday. waxa uu ku leeyahay aad ayaad cod macaan tahay. isla markiiba waa uu soo kacay, waxa uuna u dhiibayaa lacagtan. waxa uu ku leeyahay howl lacagtan qaada, adiga ayaa iskale. iyadana waxay moodaysaa in ay ku heshay codkeeda aadka u macaan. isla markiiba uu soo dhawaanaya, waxayna ku leedahay waa mahadsan tahay. laakiin markiiba waxa uu dareemay gabadhan inay diidan tahay. Hawkan waa uu soo dhawaanaya gabadhii, markiiba waxa uu ku dhufanayaa dharbaxa aad u xanuun badan. isla markiiba dhulka ayay ku dhacaysaa. waxa uu ku leeyahay aniga imaqal, wax kasta aan u baahanahay ayaan kaa samaysanayaa. daawadayaal, gabadhii waxa uu kufsaday si arxan daran, weliba isagoo khasbaya. Carolna waxay u noqotay habeen aad u madow, maadaama nolosheedii oo dhan lagu ciyaaray. dharkeeda ayuu xiraya, waxauna ku leeyahay gurigaagii tag. guriga ayay imaanaysaa, wayna murugaysan tahay, aad ayay u xanaaqsan tahay. ilaa markii dambe cunugeedii ay laabta gashatay. Carol cuntadii ayay u dhigaysaa nimankii guumaystayaasha ahaa, iyadoo aad u naxsan maadaama ninkeedii uu joogo. laakiin markiiba Hawkan ayaa soo galay. ninkan ayaa gabadhan khashkhashaadaya, waa uuna ku qoslaya. isla markiiba Sam ayay u imaanaysaa. Samna waxa uu ku leeyahay maya, waa inaan ku aaraa. isagoo aad u xanaaqsan ayuu waxa uu soo galayaa Hawkan. kadibna waxa uu ku leeyahay naagteeda ayaa koosatay, waxaana rabtaa inaad nabad ku joogtid. waa uu ku qoslaya, waa uuna fiirinayaa. ilaa markii dambe uu kusoo orday, feer ayuu wejiga kaga dhufanaya, waxauna qaraacayaa ninkii. si carale ayuu u qaraacayaa Sam, waxauna rabaa inuu ka aarsado. laakiin markiiba askartii meesha joogtay ayaa kala celinaysaa, halka Hawkan uu dhulka ku dhacay. ninkan ayaa imaanaya saaxiibaya, waana askarigii ka sareeyay Hawkan. waa uu imaanaya, wuxuu ku leeyahay xafiiska igu imow. xafiiskii ayuu imaanaya, waxauna ku leeyahay ninkani waa inaa magaaladan ka baxdaa maadaama aa khalad samaysay, waana ku bedelay. laakiin waxa uu ku oranaya maxaad igu bedelaysaa. Hawkan aad ayuu xanaaqaya, laakiin waxa uu sheegayaa haddii uu diido inuu shaqada dhan ka erin doono. Hawkanna aad ayuu xanaaqaya ilaa markii dambe qayliyey. isla markiiba go'aan ayuu qaatay, waxauna rabaa intuusan magaalada ka bixin inuu ka aarsado Sam iyo xaaskiisaba. habeennimadii Sam waxa uu arkaya albaabka oo lagu soo qaraacaya, kadibna ciidamadan ayaa gudaha u soo galaya, waana Hawkan iyo saaxiibadii. laakiin markiiba albaabka ayuu xirtay Hawkan, kadibna waxa uu ku leeyahay xaaskaaga adigoo arkaya ayaan ku samaynayaa wax kasta. Carol ayuu soo qabanaya, kadibna madaxa ayuu feer kaga dhufanaya, waa ay weeraraysaa. saaxiibayaal isagoo arkaya ayuu rabaa inuu xaaskiisii kufsado. waa uu qaylinayaa Sam, laakiin cid dhegaysanaysa ma jirto. xaaskiisii isagoo ujeeda ayay kufsanayaan saaxiibayaal. hal mar ayuu iska furfurayaa nimankii garbahayay, kadibna waxa uu dhuunta qabanayaa Hawkan, laakiin markiiba way ka furfurayaan. Hawkanna qorigiisa ayuu soo qaatay, waxauna wadnaha kaga dhuftay xabad. Samna halkaas ayuu ku dhintay saaxiibayaal. ilmihiisii yara ayaa qaylinaya. ninkan askariga ayaa ilmihii soo qabanaya, kadibna waxa uu ku oranayaa Hawkan ilmaha naga aamusi. ilaa markii dambe uu ilmihii yaraa derbiga ku dhuftay saaxiibayaal. Carol ilmaheediina halkaas ayuu ku dhintay. miiska ayay weli saaran tahay saaxiibayaal, waana ay kufsanayaan dhammaantood. waa ay isku bedbedelayaan. halkii ayay kaga tageen habeennimadii, waa ay suuxday. subaxnimadii ayay soo toostay saaxiibayaal, kadibna waxay arkaysaa cunugeedii yaraayo meyd oo halkaas yaal, iyo sidoo kale ninkeedii oo halkan ku dhiig baxay. ka waran saaxiib, haddii arrintan oo kale ay kugu dhici lahayd maxaad samayn lahayd? qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. aad ayay u xanaaqsan tahay. meydka cunugeedii yaraa ayay soo qaaday, waxayna lasoo dhex maraysaa tuulada. waxayna dareemaysaa dhibaatada ay dareemayso hooyo sidan oo kale lagu sameeyey. dadkii magaalada ayaa kusoo ordaya, wayna u sheegaysaa. booliskii ayay u tagtay, waxayna ku leedahay ninkan waa lay kufsaday, ilmahaygiina waa kan isagoo meyd ah, ninkaygiina waa la dilay. balse waxa uu ku oranayaa Hawkan xalay ayuu magaalada ka baxay, shaqadiina waa laga bedelay. sida u dhici kartaa? way xanaaqaysaa, iyadoo aad u qaylinaysa ayay kasoo baxaysaa. Carol waxay aragtay inaysan cadaalad meeshan ka jirin. dadkan guumaystay ee halkan qabsaday dhammaantood ay rabaan sharciga sida ay doonaan inay u sameeyaan. ninkan ayay u imaanaysaa, waxa uuna siinayaa faraskan. waxayna doonaysaa Carol inay ka daba tagto Hawkan, laakiin waxa uu sheegayaa ninkan inaysan garanayn kaynta. ninkan ayuu keenay madowga ah, kadibna waxa uu ku leeyahay gabadhan waa inaa kaxaysaa. waxa uu ku leeyahay xagee u socotaa? waxayna u sheegaysaa been. waxay ku leedahay waxaan u socdaa faamilkaygii inaan soo booqdo. laakiin markiiba waxa uu ku leeyahay maya, aniguma ku kaxaynayo. way xanaaqaysaa. kadibna faraskeeda ayay soo qaadanaysaa. waxay doonaysaa inay ninkan iskaga tagto, ilaa markii dambe ay qori soo qaaday. way ku qabanaysaa. waxay ku leedahay si khasaba ayay ku kaxaysanaysaa. waxayna ku leedahay hore u soco, waa inaad jidka i tustaa. ninkan keliya ayaa jidkan garanaya dadka halkan jooga. ninkan
ninkan waxaa lagu magacaabaa saaxiibayaal Billy familkiisii iyo dadkiisii oo dhanna waxaa afduubtay hawkan si ka badan dadka cadaanka ayaa loo guumaystay ninkani waa adeerkiis waxaa xoog ku kaxaystay ciidamadii uu watay hawkan waxa uuna tusayaa jidka halkan ayay iska socdaan waxa uuna ku xamaalanayaa alaabtii ay wateen oo dhan Carol weli waxay dhex socotaa kayntii waxayna raadinaysaa hawkan waxay arkaysaa gurigan la gubay hooyadan iyo gabadhan yarta inay ag taagan yihiin iyo sidoo kale xoolahan la baabi'iyay waxa dhibaatadaas geystay saaxiibayaal waa ciidamadii uu watay hawkan Billy waxa uu arkayaa dadkiisii oo halkan lagu gumaaday kadibna laga soo daldalay geedaha korkooda waa isku naxaysaa Carol waxay arkaysaa inaysan meeshan wax nolol aysan ka jirin dadkan ay marsiyeen ciqaab aad u daran guriyihii ayay ku gubeen dadkii aad ayay u xanaaqsan tahay Carol safarkooda ayay ku jiraan laakiin xilli habeenimo ayay noqotay halkan ay iska seexanayaan Carol iyo Billy waxayna doonayaan inay bari safarkoodii hore u sii wataan waagi ayaa bariyay indhaha ayay kala furaysaa roob ayaa da'aya kadibna saaxiibkeeda ayaa soo kacaya Billy roobka ay halkan kaga dhuumanayaan markii uu roobkii ka dhamaaday ayay soo kacayaan waxayna soo dhexgalayaan kaynta faraskeeda ayay wadataa Billyna waa uu ka horeeya waxa uu tusayaa jidka ninkan waxaa lagu magacaabaa Jago waxauna ka tirsan yahay ciidamada hawkan waxauna ka mid yahay nimankii kufsiga u geystay gabadhan lagu magacaabo Carol Jago waxa uu doonayaa gabadhan Afrikaanka inuu kufsado ilmaheedii yaraana uu la socdo isla markiiba naagta ayuu soo qabanay waxauna rabaa inuu kufsado gabadheedii yarada ayaa iska ooyeysa laakiin Jago waxa uu rabaa inuu khasbo waana caado uu bartay inuu kufsado dumarka Billy iyo Carol weli kaynta ayay ku dhex jiraan waxayna baadigoobayaan cadowgoodii si ay u laayaan Carolna waxay rabtaa inay argoosato meeshan webiga ayaa kusoo hagaagaysa ee biyuhu socdaan waxayna ku khasban yihiin inay webiga ka gudbaan si ay dhanka kale u aadaan Carol oo faraskeedii saaran waxay soo gelaysaa webiga saaxiibkeed Billyna waa uu ka daba ordayaa ugu dambeyn webigii waa ay kasoo baxeen waxayna yimaadeen banaanka mar kale saaxiibayaal habeennimadoodii labaad ayay halkan ku qaadanayaan markiiba waxay ku oranaysaa Carol waa inaan aarsanaa laakiin Billy waxa uu ka oranayaa waa nacabahay dadka guumaystay ee cadaanka xitaa adiga waa ku nacabahay laakiin waxay u sheegaysaa in iyada iyo isaguba ay u siman yihiin guumaystaha labadoodaba ay ku hayaan dhibaato waa uu ku qancaya hadalka gabadhan ay u sheegayso subaxii markii waagi bariyay waxa uu diyaar u yahay inuu dagaalamo ninkan isla markiiba waxa uu diyaarsanayaa falaarihii uu ku dagaalami lahaa halka Billy ay wadato qorigan waxayna diyaar u tahay inay dagaalanto mar kale kayntii ayay soo dhex qaadayaan iyagoo safarkoodii ku jira halka Jago iyo gruubkii kale halkan joogaan Jago askartiisii mid kamid ayaa la dilay isla markiiba Jago waa uu qaylinayaa halka askarigii labaad falaar looga dhuftay bowdada hawkan xabad ayuu ridayaa waxauna la yaaban yahay jihada ay kaga socota falaaruhu ilaa markii dambe uu nimankan Afrikaanka ku qabtay baaskoolad waa ay kala cararayaan kaynta ayay soo galayaan ninkana waxa uu ka mid yahay askartii kufsatay Carol ciidamadiisii ayuu ka go'doomay kadibna waxa uu soo qaaday waddo khaldan halkan ayuu fariistay waxauna iska xirayaa nabarkii soo gaaray Billy iyo Carol weli halkan ayay socdaan mana oga waxa ka socda kaynta halka askarigan uu weli dhex wareegaya kayntii isagoo aan garanayn meel uu socdo laakiin markiiba way aragtay Carol waa ay soo baxsanaysaa waxayna rabtaa ninkan inay qabato isla markiiba ninkii ay arkaysaa wejigiisii laakiin isagii ayaa arkaya waa uu ku soo ordaya si caawimaad u weydiisto laakiin markiiba wuxuu arkayaa inay tahay Carol aad ayuu isugu naxayaa ninkan ilaa uu ka cararay Carolna waa ay garatay inuu ka mid yahay nimankii kufsaday isla markiiba way soo baxsanaysaa ilaa markii dambe ay faraskii kasoo degtay iyadoo aad u xanaaqsan qorigeeda ayay soo qaadanaysaa waxayna rabtaa inay disho gacmaha ayuu kor u taagayaa hal xab ayay ku dhufanaysaa waxayna kaga dhacaysaa lugta dhulka ayuu ku dhacayaa ilaa xabadii labaad damacday inay gashato wejigeedana wax naxariisa kama muuqdaan laakiin qoriga ayaa u dhici waayay xabadiina waa ay ka dhammaadeen ilaa markii dambe saaxiibayaal ay midi soo qaadatay kadibna waxay caloosha uga gelinaysaa si naxariis daran waa ay ku celcelinaysaa ilaa ay ka miyir beeshay waxay uga aarsanaysaa si arxan daran wejigeedii oo dhan waxa uu noqday dhiig Billy aad ayuu naxsan yahay waxauna arkay in gabadhan ay tahay gabar halis ah hawkan weli waxa uu ku jiraa kayntii isagoo raadinaya wadda uu ka baxo isla markiiba odayga ayuu weydiinaya waxauna ku leeyahay waddada si fiican noogu sheeg laakiin waxuu ku oranayaa kaynta kama bixi doontid waa dhimanaysaa isla markiiba baaskoolada la soo baxaya waxauna ku leeyahay khasab waa inaad waddada noogu sheegtaa ilaa markii dambe xabad odaygii ku dhacday ninkan ayaa dilay odayga hawkan aad ayuu xanaaqay ninkii ayuu qaraacaya waxauna ku leeyahay maxaa u dishay ma garanayna cid kale oo waddada naga saari kartaa odaygiina halkan ayuu ku nafbaxaya Billy waxa uu yimi adeerkiisa oo meyd oo halkan yaala kadibna waa uu ku dul ooyayaa aad ayay u xanaaqsan tahay Carol waxayna ka murugaysan tahay dhibaatada Billy loo geystay adeerkiis isagoo aad u xanaaqsan ayuu Carol u imaanaya waxauna ku leeyahay waa inaan aarsanaa iyaduna waxa ay ku leedahay dhinacaaga ayaan ahay waa ay kasoo baxayaan laakiin saaxiibayaal waxay arkayaan hawkan iyo ciidamadiisii oo halkan dhex lugeynaya way u jeedaan waxayna isla qaateen go'aan isla markiiba qorigeeda ayay diyaarsatay waxayna doonaysaa inay hawkan disho laakiin waa uu arkay qorigiisa ayuusna soo qaatay ilaa xabad garafka kaga dhuftay way cararaysaa Carol way kasoo daba cararayaan dhammaantood Carolna halkan ayay ordaysaa iyadoo qorigii gacanta ku haysa dhaawacna saaxiibkeedna waa uu daba joogaa ilaa markii dambe ee ciidamadii hawkan ay qabteen Billy waa ay qaraacayaan ilaa markii dambe dhulka ay ku dhufteen
Carol kor ayay ka daawanaysaa wax tabarana ma haysay kaga celiso ugu dambeyn saaxiibayaal way afduubteen Baileyna waxay ku yiraahdeen wadada noo saax laakiin wada khaldan ayuu marsiiyay ilaa markii dambe askarigan uu ku yiri istaag waxa uu dareemay hawkan inuu ninkan khaldayo ilaa markii dambe wiilkan qoriga u dhiibay kadibna waxa uu ku leeyahay ninkan dil wiilkii qoriga ayuu cabaysanaya waxaanu rabaa inuu dilo laakiin xabadii ayaa koriga boodaysa isla markiiba Bailey waa uu baxsanaya waxa uu galaya kaynta isagoo xabad ay ku socdaan hawkan aad ayuu xanaaqaya waxaanu ku xanaaqaya wiilkii yara ayuu meesha uga tagay laakiin waa isku ooyay ilaa markii dambe uu ku soo jeestay xabadna kaga dhuftay wadnaha way isku naxday waxayna mooday in saaxiibkeed Bailey la dilay laakiin waa uu imaanaya isagoo aad u faraxsan waxa uu ku leeyahay waan ka soo baxsaday way soo raacayaan safarkooda ay hore u soo qaadeen kadibna waxay arkeen odayga inay islaantan faraska saaran waa ay soo kaxayeen waxayna keeneen magaalada gurigoodii ayay habeennimadii ku hoyanayaan halkan ayay isaga cuntaynayaan kadibna waa ay seexdeen Bailey iyo Carol waagi ayaa bariyay magaaladana waxa haysta ciidamadii uu hogaaminayay hawkan subaxnimada ayuu ku arkayaa suuqa hawkan oo halkan taagan Bailey aad ayuu xanaaqayaa kadibna saaxiibtii Carol ayaa soo ordaysa isla markiiba faraskooda ay halkan yaala ay helayaan habeennimadii magaalada ayay ka baxeen kadibna duurka ayay tageen ninkan waxa wajiga marsanaya caada dhaqameedkiisa waxa uu diyaar u yahay inuu dagaalamo si uu uga aarsado hawkan iyo ciidamadiisa maadaama ay faamilkiisii oo dhan ay laayeen habeennimadii waxa ay soo galeen gurigii hawkan uu degnaa isagoo qorigiisii wataa Carolna waa ay la socotaa ugu dambeyn qolkiisii ayuu furay kadibna waxa uu arkay Carol halkan iskaga baashaalaya laakiin markiiba warankiisa ayuu ku soo turay waxaana kaga dhuftay wadnaha halkaas ayuu ku dhintay hawkan Carolna aad ayay u faraxsan tahay maadaama la dilay hawkan isla markiiba waxay ku dhahaysaa soo carar laakiin jaaga ayaa xabad caloosha kaga dhuftay Baileyna waxa uu ku dhacay dhulka isla markiiba waa uu xanaaqay Bailey waxa uu baxsanayaa ninkan warankiina waa iska saaray laakiin jaaga waxa uu ku leeyahay dilin ilaa markii dambe uu si naxariis daran warankii uga geliyay wadnaha halkale ayuu uga celinaya waxaana ka gelinayaa dhuunta halkaas ayuu ku dhintay saaxiibayaal dhammaan nimankii kufsaday Carol halkaas ayay ku wada dhinteen saaxiibayaal aad ayay u faraxsan tahay saaxiibkeedna waa uu nool yahay filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay saaxiibayaal oo ku mahadsantiin daawashada muuqaalka